Sheekada maanta aan idiin soo gudbin doono waa sheeko aad u qiimo badan oo cusub aadan weli hore u maqal. Aan idiin bilaabo sheekada. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa Dawco waxay isweydiisay, cunugaaga xaaladiisa ka waran bal. Markaas ayay Dawcadii inay soo baxday waxay u imaaday cunugay dhashay. Markay u timid cunugeeda ayay waxay ku tiri, cunugaygiyow aan ku weydiiyo su'aal. Wuxuu ugu jawaabay isna, i weydii. Su'aasha aan ku weydiinayo waxaa waaye, horta salaata ma dukataa? Cunugii wuxuu ugu jawaabay, marmar. Markaasi ayaad in su'aashii ku celisay waxay ku tiri, marmar maahine salaada ma dukataa oo toos ma u dukataa? Markaas ayuu cunugii wuxuu ugu jawaabay, maya, marmar oo keliya ayaan dugtaa. Markaas ayay intay yaabtay ee fiirisay cunugii waxay ku tiri, soo bax, saan xal ma ahee, waxaan ku soo tusaa. Markaas ayay cunugii soo waday. Waxay soo socdeenba waxay u keentay geed weyn oo meel ku yaala. Markaas waxay ku tiri, geedkan ma u jeedaa? Cunugii wuxuu dhahay, haa. Haddaba haddaa u jeedid geedkan, ii sheeg wax ku kala qoran. Wuxuu dhahay, waxaa ku qoran arkaanul islaam iyo siday u kala horeeyaan. Markaasi waxay ku tiri, ka waran bal haddaa ka tagtid salaada, soo khatar weyn ma ku sugnid oo islaamnimadaadii dhaawac weyn ma u geysaninoo? Markaasuu cunug wuxuu yidhi, haa hooyo, saan dhan inay halis u tahay ma u malaynaynin. Markaasuu cunug wuxuu yidhi, waxaan ku suganahay khatar aad u weyn. Salaadii haddaan ka tegay, camalkaygii dambe dhan waan dhaawacay. Hadda laga bilaabo salaadeeda toos ayaan u dukanaa. Cunugiina saas ayuu ku bilaabay salaada dukashadeeda. Maxaynu ka faa'iidnay sheekadan? Ugu horeyn waxaanu ka faa'iidnay in haddii uu qofka ka tago salaada, uu camalkiisa oo idil meesha uu ku baaba'ayo. Tusaale, haddii aan geedkan meeshaan ka jarno, geedkan ma sii noolaa karaa? Jawaabtu waa maya. Salaadana booskaas ayay noogu jirtaa. Haddii aan salaada ka tagno oon booskan ka bixino, waxay la mid tahay sakadaadiina wax ma ka jiraan, soonkaadiina wax ma ka jiraan, xajkaadiina wax ma ka jiraan. Haddii aad xajka 100 jeer tagtid, lacagtaa doontid sadaqay, soonkaa rabtid soom, camalkaas oo idil waa eber. Waayo acmaash wixii isku xiri lahay ayaa ka tagtay. Waa soomaa mana dukanay, ma soconayso. Xajkaan aasanaa, taariku salaadna waa ah, wax soconaya ma ahan. Salaada waa laf dhabar. Qofkii ka tagaana camalkiisa oo idil meesha uu ku baaba'ayo. Haddii aad rabtid inaad guul ku gaarto adduunka iyo aakhiraba, waa inaad iska hagaajisaa salaada. Haddii aad salaada ilaalisidne, waad guulaysanaysaa. Haddii aad salaada ka tagtidne, adduunyo iyo aakhiraba ciriir ayaa ku noolaanaysaa oo nolosha dhan ayaa ciriiri kugu noqonayso. Oo waayo waxaa tahay qof jaray xiriirkii Ilaahay. Sidaa daraaddeed aynu ku dadaalno salaada, aanu barano salaada sida loo dugto, waqtigeedana aan ilaalino. Rasuulkeena Muxammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi, awwalu maa yuxaasibu bihi al-cabd fii yowmi al-qiyaamah as-salaah. Camalka ugu horeeya ee maalinta yowmul aakhiro laga xisaabin doono waa salaada. Salaada hadday ku wanaagsanaato, camalkaago idil wuu ku wanaagsanaanaa. Waayo salaada xumaanta ayay kaa reebaysaa oo wanaagga ayay ku faraysaa. Sidaa daraaddeed marka waa inaan ku dadaalnaa salaada dukashadeeda, aan ilaalinaa waqtiga salaada. Waayo maalinta aakhiro waxa ugu horeeya ee la xisaabi doono waa salaada. Salaada hadday noo wanaagsanaatane, camalkeeno idil wuu noo wanaagsanaanaa oo waxaan gaaraynaa guusha ugu weyn uu gaaro qof bin'aadan ah. Guusha ugu weyn ee qof bin'aadan uu gaarana waa janno. Aan ku dadaalno nolosheena dambe ee aakhiro sidee noogu wanaagsanaan lahayd. Nolosheena dambe aakhiro wanaaggeedana waxa naga xiga waxaa waaye
waa inaan ku dadaalnaa oo gacan bir ah ku qabanaa salaada si ay noogu hagaagaan camalkeeno idil hadduu noo hagaagane waxaan helaynaa raalli ahaanshaha alle. Raalli ahaanshaha alle haddaan helnane waxaan ku guuleysanayn waxaa waaye janno. Ugu dambeyntii aan sharax guud ka bixiyo tusaalaha aan soo qaatay. Tusaalaha aan soo qaatay waa geedkan ay ku qoran tahay arkaanul islaam: ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah, iqaamatu salaah, iitaa'u zakaa, soomu ramadaan, xajul beyt man istadaaca ilayhi sabiila. Aan si fiican iskula fahanno tusaalahan. Qof asagoo gaal ah hadduu dhaho maanta salaadan dukanaa oo soo baxo masaajid inuu imaado, dadka waxay suubinayeen oo ka daba suubiyo oo sidaas salaada uu ku dugto, salaadaas ajir ma ka helaa? Maya. Hadduu dhaho waa soomaa oo subaxii ilaa ay maqribkii uusan raashin wax biyo uusan cabin, soonkaas ajir ma ka helaa? Maya. Sababta maxaa yeelay waa gaal oo ma rumaysno ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah. Midaas ayaa laga waayey. Sidaa daraaddeed wax walba oo wanaag oo suubiyaa wax ajir ah kama helayo, waayo ma ahan qof muslim ah. oo waxaa laga waayey inuu qiro ashhaadka. Aan u imaano marka qofka muslimka ah. Qofka muslimka ah wuxuu yaqiinsan yahay ashhaadka, wuxuu qirsan yahay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah. Qofka muslimka ah waxaa waajib ku ah marka salaadii, sakadii, xajkii, soonkii waajib ku ah. Ugu horeyn waxa waajibka ku ah waxaa waaye salaada waxaa waaye waa camalka ugu badan ee qofka muslimka ah kusoo laalaabta maalintii 5 jeer ayaa noogu soo laabataa haween iyo maalinba. Waxaan u maleynayaa in si fiican loo fahmay tusaalaha ujeedka aan ka lahay oo ahay in salaada la ilaaliyo. Salaada haddaan ka tagno oo soonkeeni, xajkeeni iyo sakadeeni wax walba aan sameyno ee eber ay naga naqanayaan inaan ogaano. Guntii gunaanadkii waxaan rajeynayaa inuu noqdo tusaalahan tusaale aad u wanaagsan oo aad loo fahmay. Walaalahayga aan jeclahay, haddii aad muuqaalkan wax ka faa'iiday, la wadaag walaalahaaga kale. Waxaa laga yaabaa maanta ka hor qof aan salaada dukan jirin inay u noqoto tusaale wanaagsan oo sidaas ugu waana qaato.